kulanti wacan wanaagsan daawadayaal habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena caawa aad ku daawan doontaan haddii allaha awoodda uu raalli ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya isku day xabsiga looga sii dayn rabay maxaabiis ka soo jeeda Soomaaliland oo ku xiran magaalada Laascaanood oo la sheegay in laga war helay shaki xoogan oo arrintaasi ka dhashay wararkii ugu dambeeyay xabsiga magaalada Laascaanood oo amnigiisa aad loo adkeeyay waxaan idin la wadaagi doonaa xogaha iyo macluumaadka arrintan ka soo kordhaya qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dagaalkii Sabiib iyo Caanoole oo mar kale qarxay iyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika oo xilligan dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabay deegaano duleedka ka ah magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaan idin la wadaagi doonaa xogaha iyo macluumaadkii ugu dambeeyay iyo wararka sheegaya in Sabiib iyo Caanoole ay la wareegeen maleeshiyaadka kooxda shabaab qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya General Odawaye Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku wajahan furmaha dagaalka xilli digniino culus loo diray waxaan idin la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay digniinta culus ee soo baxday iyo sidoo kale furmaha hore ee dagaalka taliye Odawaye Yusuf Raage xilligan uu ku wajahan yahay iyo meelaha uu tagi doono qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya khilaaf xoogan oo ka taagan dhamaystirka maamulka SSC Qaatumo iyo ergooyinka qaar oo la sheegay in iskaga bixeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan idiin soo gudbin doonaa xogaha iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee arrintaasi la xiriira qodobada kale caawa wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidankii ugu badnaa oo Jubbaland ay ka soo dejisay gobolka Gado iyo xiisadii Jubbaland ee ka taagnayd gobolka Gado oo waji kala yeelatay xilli Cabdirashiid Janan halkaasi loo magacaabay waxaan idiin soo gudbin doonaa xogaha iyo macluumaadka arrinta ku aadan iyo Axmed Madoobe oo xilligan qaadaya tallaabooyin culus oo ka dhan ah gobolka Gado ciidanka ku sugan ee dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan haddii abaweyne uu qadaro qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordhay ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir like sar muuqaalkan sidoo kale subscribe si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan sida joogtada ah uga hela wararka iyo macluumaadka mar walba halkan aan ku soo gudbinayno soo dhawaada saaxiibayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa xog xasaasi ah ayaa ka soo kordhaysa isku day xabsiga looga sii dayn rabay maxaabiis la sheegay inay ku xirnaayeen xabsiga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo ugu dambeyntii fashilantay maxaa ka jira in saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka SSC Qaatumo xabsiga la dhigay kadib markii laga war helay inay fududeynayeen maxaabiiskan hanaanka la doonayay in ay xabsiga uga baxsadaan maxaabiis uu ku jira Faysal Cabdi Bootaan iyo sidoo kale saraakiil ka soo jeeda maamulka Soomaaliland oo lagu qabtay dagaalkii Gooja Cadde ayaa la sheegay in xilligan ay qorsheynayeen inay iskaga baxsadaan xabsi ku yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood maalmihii la soo dhaafay waxaa ka soconayay dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo mashquulkii ugu xooganaa oo dhinaca siyaasadda ah taasi oo ku aadan dhamaystirka maamulka curdunka ah ee SSC Qaatumo talaabadan iyadoo laga faa'iideysanayo ayaa waxaa la sheegay in laga war helay in xabsiga magaalada Laascaanood la doonayay in laga sii daayo 27 maxaabiis kuwaasi oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Soomaaliland oo ugu tunwan yahay Faysal Cabdi Bootaan oo muddo ku dhow 3 sano ku xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arrintan markii laga war helay waxaa la sheegay in markaasi aad loo adkeeyay amniga xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood kaasi oo ay ku xiran yihiin maxaabiistii ugu badnayd oo 300 kor u dhaafaysa waxaana la tilmaamay in xabsiga iminka amnigiisa uu yahay mid aad u adag arrintan laga war helay sidoo kalena laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliska maamulka SSC Qaatumo arrintan ay ka hortageen xogaha iyo macluumaadka soo kordhaya ee ka imaanaya magaalada Laascaanood ayaa ku waramaya in saraakiil caan ah oo magacyadooda aan la soo bandhigin in markaasi xabsiga loo taxaabay taasi oo lagu helay dambiga ah in ay fududeynayeen arrinta la xiriirta in maxaabiistan ay markaasi baxsadaan dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ciidanka maamulka SSC Qaatumo ay gacanta ku dhigeen rag looga shakiyay in ay yihiin basaasiin ka soo jeeda maamulka Soomaaliland kuwaasi oo lagu qabtay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool loona dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood xogtan ayaa la tilmaamay in ay tahay mid markaasi laga helay ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ayna noo xaqiijiyeen in markaasi laga war helay shirqoolkan la doonayay in lagu sii daayo maxaabiista waxaa la qorsheeyay in xilli habeen ah qaar ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiga magaalada Laascaanood qaybna ka ah kuwa Soomaaliland in markaasi laga sii daayo xabsiga
iyadoo gaadiid looga daabulaya magaalada Laascaanood laakiin waxa la sheegay arrintan in ay markaasi ka war heleen ciidanka booliska gaar ahaan qaybo kamid ah laamaha amniga iyadoo markaa wixii ka dambeeyana la tilmaamay in aad loo adkeeyay xabsiga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arrinta Faysal Cabdi Bootaan oo ah mid ugu weyn sidoo kalena saameynta ugu ballaaran leh ayaa la tilmaamay in la doonayay in xabsiga laga sii daayo maadaama Faysal Cabdi Bootaan muddo dheer xanuuno kala duwan uu ku wajahayay xabsiga magaalada Laascaanood dalabyo badan oo ka yimid markaasi qoyska uu ka soo jeeda Faysal Cabdi Bootaanna ay ku gacan sayreen hoggaanka maamulka SSC Qaatumo oo ka biyadiiday in markaasi la sii daayo Faysal Cabdi Bootaan iyo ragga la midka ah oo lagu eedeynayo xilligan in ay galeen dambiyo waaweyn taasi oo ay qayb ka tahay in la laayay shacab aan waxba galabsan oo ku sugnaa magaalada Laascaanood xilliga dagaalka uu ka soconayay xerada Gooja Cad sidoo kalena Faysal Cabdi Bootaan lagu eedeeyay in uu qayb ka yahay raggii amrayay madaafiicdii lagu garaacayay magaalada Laascaanood 2022 oo dagaalka xooggiisa uu ka soconayay xeradii Gooja Cad ee laga saaray ugu dambeyntii ciidankii maamulka Somaliland ee halkaasi markaa madaafiicda uga garaacayay magaalada Laascaanood dad badan ayaa ku geeriyooday xilligii markaasi duqeymaha culus Somaliland ay ka fulinayeen xarunta maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Laascaanood balse 2 sano iyo bar kadib hadda waxaa soo ifbaxaysa in qaar kamid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii Gooja Cad oo qayb ka yahay Faysal Cabdi Bootaan in la doonayay in si qarsoodi ah markaasi lagu sii daayo xogtan ayaa waxa noo xaqiijiyay saraakiil sarsare oo ku dhadhow dhinaca maamulka SSC Qaatumo gaar ahaan hoggaanka talada haya ee Cabdulqaadir Firdhiye waxa ayna tilmaameen in arrintaasi laga hortagay sidoo kalena markaasi digniino culus loo diray saraakiishii ku howlaneed arrintan oo la tilmaamay in bedelkooda iyaga la gelin doono haddii markaasi la sii daayo raggan markaa ku eedeysan dambiyada dagaalka ee ku xiran xabsiga ku yaala magaalada Laascaanood haddaba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu dilo u raali ka noqdo markana waxaan eegaynaa gobolka Shabeellada Hoose xogta ka imaanaysa gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay ku waramaysaa in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ee Burundi ee loo yaqaano howlgalka AUSOM xilligan ay bilaabeen howlgalkii ugu cuslaa waxaana la tilmaamay in maqribnimadii caawa dagaal culus uu ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay qayb ka tahay magaalada lagu magacaabo Sabiib iyo Caanoole oo ah halkii maanta lagu dagaalamay wararku waxay sheegayaan in ciidamadu ay dib ugu laabteen deegaanada la yiraahdo Sabiib iyo Caanoole oo markii hore iskaga soo baxeen kadibna halkaasi ay gaareen maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab waxa la sheegay in dagaal kooban oo dhacay markaasina la isku adeegsado hubkii nuucyadiisa kala duwan dib ay ugu suurta gashay in ay ula wareegaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ee maalmihii ugu dambeeyay howlgallada culus ka waday deegaanada hoos yimaada magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose waxay ku waramayaan in caawa xaalad cabsi ah ay ka taagan tahay deegaanada Sabiib iyo Caanoole dadkii deganaana halkaasi ay ka barakaceen iyadoo laga cabsi qabo in mar kale uu ka dhaco halkaasi dagaal rogaal celis ah maadaama la isku habeensaday dagaalkii maanta soo bilowdayna uu ahaa mid markaasi soconaya saacadihii la soo dhaafay marka loo eego xogaha wararka la helayo waxa ay sheegayaan in dagaalku uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac wali lama soo bandhigin xogta rasmiga ah ee dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay laakiin waxa la soo sheegayaa in xaaladdu marba marka ka dambaysa ay ka sii darayso howlgalladii ugu cuslaana ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee halkaasi howlgallada culus ka wada wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah uu dilo u raali ka noqdo markana General Odawa Yusuf Raage oo ku wajahan furmaha dagaalka waxaana cabsi xoogan laga muujiyay amnigiisa kadib digniino culus oo markaasi ay soo direen xubnaha beesha caalamka ee dhinaca amniga ka taageera Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage ayaa la sheegay in uu ka carooday ciidanka ku sugan magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaasi oo ilaa iminka aan u soo jihaysan dhinaca magaalada Muqokori ee gobolka Hiiraan oo dagaal halkaasi ka dhacay kadib maleeshiyaadka kooxda shabaab ay u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan magaalada Muqokori xogaha iyo macluumaadka ayaa waxa la tilmaamayaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage maalmihii ugu dambeeyayba aad markaasi uu u daneynayay in uu tago deegaanada iyo degmooyinka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan oo xilligan markaasi qaybo badan oo kamid ah ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda shabaab xogta iyo macluumaadka la helay waxa ay sheegayaan in taliyaha Odawa Yusuf Raage la filayo
filayo in maalmaha soo aadan uu ka dego magaalada Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Hoose isaga oo sidoo kale tagi doona deegaano ay ka mid yihiin magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaasi oo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ciidamadu xilligan ay ka wadaan General Odawaye Yuusuf Raage iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kulan wada qaatay ayaa waxaa la isku afgartay in mar kale la amba qaado howlgalka ka dhanka ah kooxda shabaab si markaasi deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin kooxdan looga xoreeyo maadaama xilligan muddo 4 bilood ah ay ku sii dhowdahay markii ay la wareegeen magaalooyinka muhiimka ah ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaanada kala ah ama degmooyinka kala ah markaasi aadan yabaal iyo masaajid cali gaduud oo ah labadii degme ee muhiimka ahayd ee istiraatiijiga ahayd ee dhacaya gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo muddo hadda 4 bilood ku dhow ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda shabaab arrintan oo si weyn looga arrinsaday waxaa la sheegay in markaasi go'aan culus lagu gaaray in saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hoggaamiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in amar culus uu dul dhigay saraakiisha iyadoo xilligan markaasi la doonayo in la qaado weeraradii ugu cuslaa oo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe haddaba xogtan iyo sidoo kale macluumaadkan la xiriira General Odawaye Yuusuf Raage ee tagitaankiisa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Allah ugu dalo uu raali ka noqdo war gordhow soo dhacayna waxa uu tilmaamayaa in caawa duqeymo culus ay ka soconayaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka masaajid cali gaduud iyo sidoo kale aadan yabaal diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka dhinaca cirka ka taageera Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saacadan aan idila hadlayo duqeymo ay la dhacayaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab xogta iyo macluumaadka la helayo waxa ay xaqiijinayaan in caawa ee qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe laga arkayo holaca iyo uurada ka baxaysa gantaalada ay ridayaan diyaaradaha dagaalka kuwaasi oo la tilmaamay in ay la bartilmaameedsanayaan meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka masaajid cali gaduud iyo gobolka masaajid cali gaduud iyo aadan yabaal oo markaasi dhawaan duqeymo ka dhacay lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda shabaab duqeyntan waxa ay qayb ka tahay howlgallada ka dhanka kooxda shabaab ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa saaxiibada caalamka ee dhinaca cirka ka taageera Soomaaliya ay markaasi ka fulinayeen saacadii la soo dhaafay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe wixii ku soo kordha urarkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo uu raali ka noqdo markana khilaafkii ugu xooganaa ayaa ka taagan dhamaystirka maamulka SSC Qaatumo iyo ergooyinka qaar oo lagu soo waramayo in ay iskaga baxeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaar ka mid ah ergooyinkii markaasi la doonayay in ay ka qayb qaataan dhismaha maamulka SSC Qaatumo iyo dhamaystirkiisa ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay baneeyeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ergooyinkan ayaa la sheegay in markaasi ay gebi ahaanba qaadaceen shirkan waxaana ergooyinka qaar la tilmaamay in ay ka biyadiideen qaabka xilligan loo wado dhismaha iyo dhamaystirka maamulka SSC Qaatumo kuwaasi oo ay sheegeen in beelo gaar ah ay markaasi gacan togaaleynayaan qaabka loo qaybsanayo awoodda maamulka SSC Qaatumo maadaama xilligan la doonayo in lagu saleeyo hanaanka 4.5 oo Soomaalidu markaasi ay wax ku qaybsato beesha dhulbahante ayaa la sheegay qaarkood in ay iskaga baxeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arinta iyaga oo ka biyadiidan hanaanka markaasi loo maareynayo maamul dhisida maamulka SSC Qaatumo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Firdhiye wali kama aysan hadlin xaaladan jahwareerka ah iyo khilaafka ka taagan dhamaystirka maamulka SSC Qaatumo ee xilligan magaalada Laascaanood markaasi gilgilaya xogaha iyo macluumaadku waxa ay tilmaamayaan in xilligan markaasi garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah salaadiinta iyo ismada dhaqanka iyo waxgaradka laga amar qaato ee ka soo jeeda maamulka SSC Qaatumo in ilaa wali uu ka biyadiidan yahay qaabka ay wax u socdaan iyo shirka ka soconaya magaalada Laascaanood oo lagu kari waayay in markaasi uu ka soo qayb galo shirkaasi kadib dalabyo culus oo loo dirayna waa uu ka biyadiiday sida xogaha iyo macluumaadka la sheegayo ay markaasi amana soo gaarayo ay ku waramayaan xogta ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in garaad jaamac garaad cali xilligan uu doonayo in markaasi shirkan iyo sidoo kale qaabka xilligan loo wado in wax ka bedel lagu sameeyo taasi oo ay ka biyadiideen hoggaanka ugu sareeya maamulka SSC Qaatumo haddaba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan ugu dambeyntiina ciidanka
waa ciidankii ugu badnaa ayaa Jubbaland waxa ay ka dejisay gobolka Gado. xiisadii ka taagneed gobolka Gado ayaa waji kala yeelatay. Axmed Madoobena waxa uu qaaday tallaabooyin dhinaca militariga ah oo xilligan uu doonayo in xiisad cusub uu uga abuuro gobolka Gado. gobolka Gado markii hore xiisadii ugu cuslayd ayaa ka taagneyd. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo geysay gobolkaasi iyadoo markaasi xiisadii ka dhalatayna wali ay ka taagan tahay gobolka Gado. laakiin maamulka Jubbaland ayaa qudhiisu waxa uu markaasi ciidankii ugu badnaa geeyay magaalooyin ay ka mid tahay Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado. waxaana lagu soo waramayaa in magaalada Balad Xaawo xilligan ay la ciirciirayso ciidankii ugu badnaa oo markaasi iska soo horjeeda oo ka kala tirsan Jubbaland iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. xogaha iyo macluumaadka la helayo sidoo kale waxa ay xaqiijinayaan in markaasi dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa xilligan ay ka soconayaan habeennimadan aan idin la hadlayo magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado. ciidamo si gaar ah uga amar qaadanayo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 300 oo askari ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado. Axmed Madoobe dhowr qodob ayuu ka soo horjeedaa magacaabista Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale in doorasho lagu qabto deegaanada maamulka Jubbaland taasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay aad uga fikirayso sidoo kalena gobolkaasi ay doonayso inay ku qabato doorasho ka madax bannaan midda Axmed Madoobe sidoo kalena la doonayo in lagu soo yagleelo maamul cusub oo bedeli kara maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. wali khilaafkii ugu xooganaa ayaa dowladda dhexe kala dhaxeeya maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe uu hogaamiyo iyo sidoo kale maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Saciid Cabdilaahi Deni. sidoo kale shirki ka dhacay magaalada Muqdisho ee xubnaha samata bixinta iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya u dhaxeeyay kaasi oo looga wada hadlayay xaaladda dalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu ka biyadiiday qodobadii ay hor dhigeen xubnaha mucaaradka oo ay qayb ka ahayd in Jubbaland markaasi loo fasaxo adeegyadeeda dhinaca duulimaadka sidoo kalena Jubbaland markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsato. xiisadda gobolka Gado waa ay ka sii daraysaa ciidankii ugu badnaa ayaana xilligan muuqanaysa in dhaqdhaqaaqyo culus gobolkaasi ay ka fulinayaan iyadoo dadka qaar cabsi ay ka muujinayaan xilligan in dagaal uu ka qarxo gobolka Gado. haddaba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu dalo raali ka noqdo. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like sar muuqaalkan sidoo kale subscribe dhabogan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada halkan uga hela wararka iyo warbixinada mar walba halkan aan idin kula wadaagino. ama santiin soo dhawaad